guddida fulinta ee xusbiga kulmiye ee dalka Norway ayaa qabsaday shirweynihii sanadlaha ahaa ee loo balansanaa bisha Oktoobar 2022. shirka waxaa laga wada hadlay waxqabadkii xusbiga oo muddo dheer lagu jiray xanuunka safmarka ah oo lagu wada xiriirayay aaladda is-aragga ee Zoom-ka iyo WhatsApp groupka xusbigu uu ku leeyahay dalka Norway. muddadaas oo aan la isugu iman shirweyne shirka waxaa ka soo qayb galay guddiyada fulinta gobolada Norway iyo caasimadda Oslo. shirka waxaa kale oo lagu marti qaaday gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xusbiga kulmiye Axmed Cabdi Xuseen oo booqasho ku joogay dalka Norway. waxaase uu saamixi waayay inuu ka soo qayb galo waqtigii safarka oo ka soo gudagalay awgeed. waxaa kaloo lagu soo marti qaaday gudoomiyihii hore ee xusbiga kulmiye laanta Norway Ambassador Sulub Xuseen Warsame. ugu horeyn waxaa halkaa ka hadlay gudoomiyaha xusbiga kulmiye dalka Norway Maxamed Cabdi Ismaaciil iyo gudoomiyaha garabka haweenka ee xusbiga kulmiye dalka Norway Fadhiye Saciid Axmed. waxaana hadaladoodii ka mid ahaa bishii Oktoobar 2022 waxaan maanta isugu nimi guddidii xisbiga kulmiye guddidii fulinta safiirkeenii hore iyo gudoomiyihii hore Sulub Xuseen Warsame isna nala goobjooga. waxaan maanta isugu nimi inaan isxog wareysano oo aynu garanaysaa arrimaheennii aynu iska wareysano. waxaan kaloo aynu maanta qadadan aynu halkan aynu ku qadeynayna aynu ku talagalnay inuu inoo yimaado gudoomiye ku-xigeenkii labaad ee xisbiga kulmiye oo ballanteenu ahayd inaynu maanta isna shirkayna gala soo qayb galo. laakiin nasiib xumo safar degdeg ah ku soo kordhay, markaa waxay noqotay inuu galabta degdeg u baxo. isagana ilaahay waxaan uga rajaynayaa in ilaahay safar salaamo ku geeyo wadankii. markaa shirkeenu maanta wuxuu daarnaa sidii aynu isu xog wareysanan lahayn iyo sidii aynu garanaysaa haddii alla ka dhigo dee wixii intaa ka dambeeya aynu shirarkeena dambe iyo arrimaheena dambe uga wada hadli lahayn. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. caawa xaggan waxaan iskugu imanay shirkii kulmiye sida caadiga ahayd wada tashiga ahayd uu hogaaminayo gudoomiyaha Maxamed wada tashi iyo wareysi ayaan iskugu imanay. waxaa kaloo maanta nagala soo qayb galayay gudoomiyihii labaad ee kulmiye Axmed Cabdi Dheere. markaa waxaan ka xunnahay inay u suurtogeli weyday maanta inuu xagga nagala soo qayb galo. waxaan insha Allah mar kale haddii Ilaahay yiraahdaan rajaynaynaa inay xagga dalkii ka yimaadaan wafdi kale. marka saas iswareysigii kulmiye caadiga ahayd iyo dardargelintii xusbiga kulmiye sidii loogu diyaar garoobi lahaa in tartanka xusbiyada ayaan maanta xaggan iskugu imanay. marka insha Allah khayr baan rajaynaynaa. ugu dambeyntii waxaa soo gunaanaday oo go'aamadii ka soo baxay sheegay afayeenka xusbiga kulmiye ee dalka Norway Kayse Daahir Cabdi. waxaana hadaladiisii ka mid ahaa marka qodobadeedii xisbiga horta waxaan si gaar ah intaan gaadhin waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa guddida fulinta ee ka timid gobolada ee socdaalka dheer noo soo maray. aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin. noqon maayo kii isku keen dambeeyay kulamo dambana waan qabsanaynaa. qodobada nooga soo baxay ee hadda aanu isla gaadhnay waxaa ka mid ah sidii aanu dardar dheeraada u gelin lahayn hawlaha iyaga waxqabasho maadaama waqtiyo fara badan oo culus ayna soo mareen oo xanuuno iyo dadkii oo muddooyin kala baaday. kulanka faraha badan ee aanu qabsan jirnay inta badan wuxuu ugu badnaa kulamadii aanu ku qaadan jirnay Zoom-ka ama fogaan aragga. laakiin hadda adduunkii wuu isku furfurmay. waad arkaysaan maanta waan wada fadhinaa. socdaalkaygii iyo shaqadayadii halkaasaanu kasii ambaqaadaynaa. insha Allah waxaan idiin rajaynayaa khayr qab, nabad qab, safar khayr leh. gudoomiye ku-xigeenka labaadna waad mahadsantihiin. Maxamed Jaamac TV qaranka Oslo Norway.